وتهاي مركنا ciidamada amniga ee gobolka Sanaag ayaa shalay howlgal ay sameeyeen ku soo qabtay xubno oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Howlgalkaasi ayaa ka dhacay deegaanka Dixdaxood ee gobolka Sanaag. Haddaba faahfaahinta raggaasi gacanta lagu dhigay ayaa waxaan ka wareystay Cabdirasaaq Faarax Warsame oo ah taliyaha ciidanka ee gobolkaasi. halkaan u qabanay waxay ahaayeen dad ciidamada xarakada Al-Shabaab ka mid ah oo koonfur ka yimi kuna biirayay ciidanka ka dagaalama uraha galgala marka waan helay xogta inay soo socdaan oo ay ku wajahan yihiin inay fuulaan uraha galgala say noo sheegay waxay ka yimaadeen beledweyne ka yimaadeen gobolada dhexena waa u dhasheen xagga waxay kasoo gudbeen galbeedka burco hadday habeen la joogeen waxay yimaadeen Ceergaabana waxay uga soo gudbeen balanna waxay uga sii gudbayeen buurta dabadeedna saasaan noola soconay ciidamadii sheeko hayeen waana dareensanaayeen marka eelberkeda ku yaalin oo Dixdaxood ka shaqeysa ee buurta laga fuulo ee wadada isugu timaado meelaha ay ka fuulaana ayaa ciidanku meelahaas u sii galay halka ayuunbaa lagu qabtay 5 qof iyo gaari Land Cruiser ay wataan agabkii ciidamadu saaran yahay ayay ahaayeen hadday isku dayeen inay dagaalamaan ama baxsadaan ninkan baa wax gaareen oo dhintay afartii kalena waa la qabtay gaarigii dagaalameen. Watahay bal waxaad noo sheegtaa qaabka dadkan xogtooda u hesheen ama idinkugu suura gashay inaad gacanta ku dhigtaan. waxaan la soconay gaariga iyo dhaqdhaqaaqiisa هذه سيادة السلطان ولا سعني مركز دام كساسان وغير. وتهاي إن واحد تري إن رجعنا قبضتين أيهين عيدا كتير سنة الشباب مركا محد وحقي جسن إن الشباب هين. وحقي جسن إن أطلع هذه والنظر والناشئ غير شيء كسعدين يا ما شيء هراء وقتر سناين يا إن عيدا كهاين ما يتفينين. كما كان بارستودي waa lagu jiraa oo xaqiijintooda waxa ay sheegaan laftooda inay ku cadiyeen iyaga kale baristoodii waa lagu jiraa. waa tahay san la soconaba qaybo kamid ah buuraha gobolka Sanaag Al-Shabaab fariisino ay ku leeyihiin taasi maxaad ka qabateen iyaduna? walahi waa arrin kulay way ku jiraan waana meel buuruhu waa dhib badan marka wax qabadkeedu hadii jeer way jiraan ciidamada wixii ay qaban karaan way qabtaan laakiin weli wax soo afqaay ma aha way ku jiraan waana lagu dareesay. marka ma jiraan wax baaritaan oo aad ku sameyseen raggan aad qabateen hadii ay jiraanna maxaa xog aad ka hesheen? isfaab bixisay waa noo sheegeen xubnihii walbana cid baa joogtay burcaa cid bay la xiriirayeen Ceergaabana cid bay la xiriirayeen Ceergaabo gabadh baana naga hagaysay iyo hadaba qarashka iyo waxa nasiinaysay oo joogtay marka waa soo mareen wayna u fududeynayeen safarada xagga galbeedka oo baa looga soo fududeeya laakiin waxay u dhasheen koonfur si kastaba ha noqotee ama xubna ummadda ku dhex jira oo aan la fahmayn ayaa fududeeya oo kamida ummadda qaybaheeda kala duwan sidaa darteed ay ku dhex dhiirsadaan oo dadkii ku dhex miran oo kamida ayaa howlaha qabta walba bay'ad siday tahay bay u soo kaysiyaan ana wax lagu yaqaan cadawga. waa tahay marka ragganad qabateen maxay tahay talaabada aad ka qaadaysaan? sharciga u baan u bandhigaynaa wixii sharcigu magaranaysa ay ka helaan baa la marinaya wax siyaadaha oo kale la marin maayo. waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax Warsame taliyaha qaybta ciidamada ee gobolka Sanaag oo iga waramayay rag ay gacanta ku dhigeen oo ay ku eedeeyeen inay yihiin Al-Shabaab. aan Facebook markale dib ugu laabto dhageystayaasha waxa kamid ah Sakariya Maxamed wuxuu leeyahay waan soo dhaweynayaa talaabada ay ciidamada gobolka Sanaag gacanta ugu soo dhigeen raggaasi lagu eedeeyay inay Al-Shabaab yihiin waa in baaritaan lagu sameeyaa oo si degdeg ah sharciga la horkeena ayuu leeyahay. sidoo kale dhageystahan oo magaciisu yahay Sayid Cumar Roble Cali oo jooga magaalada Muqdisho wuxuu leeyahay ciidamada gobolka Sanaag oo sheegay inay qabteen rag ka tirsan Al-Shabaab runtii waa mid aan waxba soo kordhin doonin waayo Al-Shabaab dhulkaasi inay ka dagaalamaan loogama baran waana arrin kulli ujeedo kale ciidamadu ay leeyihiin. waa tahay aad bay u mahadsan